السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waa idin salaam asxaabteeda meel walbo adduunka aad ka joogtaan kusoo dhawaada channelka Khaybar channel cashirkan waxaan ku baran doonaa sida daatada looga xiro YouTube-ka ayaa waxa ka xiraysaa daatada ayaa ka xiraysaa si daatada aan loogu fiirsanin YouTube aan loogu fiirsanin marka maxaan sameyn karnaa oo hadda daatada way inoo furan tahay wifi-ga waan xirnay daatada kaliya hadda inoo furan daatada ayaa inoo shaqeynaysa marka YouTube-ka haddaan galno daatada haddaan ku fiirsanin aan dhahno wax badan ayay goosanaysaa waxyaabo badan ayay goosanaysaa lacag badan ayay cunaysaa wifi-ga hadduu free yahay lacag badan ma cunayso marka daatada si aad ugu xirno waxaad tagaysaa setting-ga ayaa tagaysaa kadibna mobile data meesha ku qoranta ayaa taabanaysaa app using wifi and mobile network meesha ku qoranta ayaa dhagsiinaysaa markaa dhagsiisa kadib waxaa raadinaysaa YouTube ayaa raadinaysaa haddaa Facebook ka xiraysid haddaa meelo badan aad ka xiraysid waa ka xiri kartaa marka hadda waxaan dooranaynaa marka anaga YouTube-ka inaan ka xirna ayaan rabnaa kadib meesha waxa ku qoran meesha oo calaamada dhibicda ay saaran tahay wifi and mobile data ayaa ku qoran marka waxaa lagu isticmaali karaa wifi-ga iyo daatada YouTube-ka hadda waa lagu isticmaali karaa kadib waxaad dooran kartaa wifi oo kaliya waa dooran kartaa hadda wifi kaliya ayaan dhagsiina waan taabanay wifi-ga kaliya ayaa hadda ku xiran marka hadda daatada kuma fiirsan karno YouTube-ka daatada hadda kuma fiirsan karno hadda waxaa inoo dooran wifi ayaa inoo dooran okay back ayaan leenahay waan ka baxaynaa kadib waxaa imaanaynaa YouTube-ka ayaa imaanaynaa hadhowta sidan ayuu soo qabanayaa masalan haddii aan masaxno hadda YouTube-ka aan ku laabano waxba ma soo qabanayo marka sidan ayuu ahaanayaa your offline ayuu soo qorayaa oo kaliya qofkii hadhowtii wuu ku wareerayaa marka ciyaalka yaryarna ma isticmaali karaan daatadaada kuma fiirsan karaan YouTube-ka aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin fadlan haddaa channelkan ku cusub tahay like haddaa nagu cusub tahay nagu soo biir video haddaad ka heshana like saar wixii fikrina commentiga inoogu soo gudbi salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu